بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكتاب كأنها الواجبات المتحتمات باب كشروط لا إله إلا الله. شروط أي لا إله إلا الله وضد بدنا أنا فهم سنين وشرطي أي لا إله إلا الله leedahay oo hadhow daliil kitaab iyo sunnada loo soo qaadanayo erey keliya la isaga dhawaaqa inaan ahayn bay cadaynaysaa. shartina siisa waxaa la yidhahdaa shay aan la fulin karin in asaga lasoo mara mooye. bilmatal haddii lagu yidhahdo gurigaan ma soo galaysid ilaa aad tigid la timaado ama aad lacag bixiso, maxaa shardi lagaaga dhigay inaad tigid la timaado. laa ilaaha ila allah in lagaa aqbalo oo ilaahay xaggiisa maaragtay lagaaga aqbalo oo camalkaagu kuu hirgalo oo maaragtay aada muslim ku ahaato shuruuday leedahay, waxyaabo buriyana way leedahay. marka shuruudii waanu baranaynaa. alawal shardiga koowaad alcilmu bimacnaaha nafyan wa ihbaatan. alcilmu in aqoon loo leeyahay bimacnaaha micnaheeda nafyan waxay diideyso wa ihbaatan iyo waxay sugayso. taa micnaheedu waa maxay? qof aan garanayn kuma islaamayo. qof aan macnaha laa ilaaha ila allah garanayn, waxaan la garanayn see loogu islaama maba niyeysan qofkani. erey buu iskaga dhawaaqa keliya. waa inuu micnaheeda yaqaanaa. waxbay diideysaa, waxna way amraysaa. shardiga koowaad waa maxay? alcilmu bimacnaaha. dad badan baan micnaheeda garanayn iskaga dhawaaqaya. ninaan micnaheeda soo gaarin oo aan fahmin oon dabeedna ku hanuunin muslim ma aha, kaa-inan man kaan. shardiga labaad alyaqiin. micnihii markaad garato haddana inaad yaqiinsan tahay waxa micnahaasu ahaa laa ilaaha ila allah, laa macbuuda bixaqin ila allah waxda. mid xaq lagu caabudo ma jiro alle keliya mooye. markaa saas cilmi ahaan u garato inaad yaqiiniso marka inay sidaa tahay oo ilaahay mooye cid kaloo cibaadole aanay jirin. waa yaqiin, waa shardi. oo qofkaan yaqiinsaneen oo ka shakisan dee waaba muslim maaha. wa huwa yaqiintu waxaa weeye kamaalu lcilmi biha, cilmi taama oo loo leeyahay biha bilaa ilaaha ila allah, taasoo almunaafi diideysa oo meesha ka saaraysa lishaki warayb, inaad shakido. marka micnihii yaqiinta waa maxay? kamaal, wahuwa kamaalu lcilmi biha, cilmi dhamaystiran oo loo leeyahay laa ilaha ila allah, biha bilaa ilaha ila allah, taasoo almunaafi lishaki waraybi meesha ka saaraysa, munaafi diideysa lishaki warayb, in laga shakiyo ama rayb shakigiisa kiisa weyn, shakiga yar iyo shakiga weynba meesha waa ka baxaya. wixii la yaqiinsan yahay lagama shakiyo. shardiga saddexaad oo laa ilaaha ila allah ay leedahay waa alikhlaas, barax tirid. almunaafi lishirki, taasoo shirki meesha ka saaraysa, shirkiga burburinaysa. barax tirid waa maxay? saafi garayn, oo shayga marka wax lagu daro waa barax, markaan waxba lagu darinna waa saafi. ilaahay diintiisu waa saafi. alaa lilaahi diin lkhaalis. laa ilaaha ila allah waa inay daacad kaa tahay, ilaahay dartii kaa tahay, yaqiin aada u tiri, isla markaana ilaahay aad u gaar yeelayso cibaadada uu xaqa u leeyahay. shardiga afraad alraabic asidq, run inay kaa tahay, taasoo almunaafi meesha ka saarayso diideysa lilkadibi, been. run bay kaa tahay marka beena meesha kuma jirto. beentaasoo almaanicu, runtaasoo diideysa min annifaaqi, munaafiqnimo. maxaa yeele munaafiqiintu laa ilaha illa allah waa dhaheen, micnaheedana waa yaqaanaan, daahirkana maxay sameeyeen? islaamnimo iyo ikhlaas bay muujisteen, laakiin qalbiga been bay ka sheegeen. ilaahay baa ka waramay munaafiqiintu inay beenaalayaal yihiin. marka inay run kaa tahay, dhab inay kaa tahay. shardiga shanaad alkhaamis, kan shanaad almaxabatu lihadi lkalima. alraabic midda afraad almaxabatu lihadi lkalimati, kelimada in la jeclaado, iyo walima dalat calayhi, waxa ay ku tusinayso inaad laa ilaaha illa allah jeceshahay, iyo waxa ay ku tusinayso towxiidka iyo cibaadada ah, ilaah loo gaar yeelayo waanaad jeceshahay. wasuruuri bidalika, arrinkaana lagu faraxsan yahay, weliba aad ku faraxsan tahay oo ilaahay baa mahadle,
imisa aaliha fara badan caabudaysa inaad muslim tahay oo ilaahay keliya caabudayso ood muwaxid tahay inaad ku faraxsan tahay maxabana ay kugu jirto weliba asaadis kan shanaad lixaad baan dhihi lahaa alinqiyaad in loo hogaansamo lixuquuqihaa xuquuqda laa ilaaha ila allah ay leedahay wahiya waxaa weeye xuquuqdaas alacmaal alwaajiba acmaashii waajibka ahayd ee laa ilaha illa allah ka ratibmaysay oo cibaadaadkii oo dhan ah ikhlaasan lilaahi adoo ilaahay u baraxtiraya ikhlaasan lilaahi adoo ilaahay u gaar yeelaya cibaadada subxaanahu wa tacaala wa talaban limardaatihi oo aad dalbayso ilaahay raalli ahaanshihiisa adigoo dalbayo raadinaya ashartu asaabic shardiga toddobaad waa alqabuul aqbalid taam ah inaad aqbasho ogoshahay laa ilaaha ila allah wixii ku yimaada sharci ahaan caqiide ahaan kulli inaad aqbashay almunaafi liraddi taasoo meesha ka saarayso diideysa inaad wax radiso shuruudan marka qofka islaamnimadiisa way ku xiran tahay marka shuruudan toddobada ah yacni qofku waa shuruud laga rabo qaar waa niyadiisa iyo qalbigiisa wax ku jira qaarna waa daahirka muslimiinta marka dowlad muslima markay dadka islaamnimada ugu yeerayaan ma yaqiinsan tahay run ma kaa tahay ma jeceshahay shuruudahaasoo dhan qalbiga wey wax la ogaan kara maaha qofkana la weydiinayo laakiin maxaa la weydiinayaa inuu cilmi u leeyahay bimacnaa horta ma yaqaana wax laga hadlayo kow ilaahay cibaadada ma u baraxtira daahirkiisa waxaana nabigaa shardi ku xiray man qaala laa ilaaha illa allah wa kafara bima yucbadu min duuni illahi ninkii laa ilaaha illa allah yihahdo oo ku kufriya wax kastoo ilahay sukadii la caabudayay kaasaa naftiisa iyo maalkiisa badbaadiyey xisaabtiisuna ilaahay xaggiisa ay ahaatay subxaanahu wa tacaala laakiin toddobada shardi in hal loo dul istaago ma ahan inta badan daba qalbiga wayo laakiin cilmi in loo leeyahay ilaahayna la waxido labada shardi ugu waaweyn oo ah faman yakfur bitaaguuti wa yuumin billaah ama man qaala laa ilaaha illa allah wa kafara bima yucbadu min duuni illah labadaasaan ka fiirsanayna dadku markii laga helo waa ku islaam labada nabiga ku xiray waxay u qarsoonoo kale annagana lama dirin inuu jecel yahay inay daacad ka tahay in maaragtay yaqiinsan yahay ka rabo waa la barayaa mooye inta laga rabo shuruudahaasoo dhan qofka in loo itiri la yidhaahdo dowladda islaamka ama dadka muslimiinta ah ma dhahayaan waxay ka rabaan marka shuruudahaas qofka islaamnimadiisii waa ku xiran yihiin laakiin daahirka annagana loo dirsaday in cilmi laga helo micnaheeda garanayo inuu ku dhawaaqo keliya maaha inuu micnaheedana garanayo ilaahayna waxido ousan u shariig yeelin waa labada shardi nabiga ku xiray labada shardi baana laka rabaa inaan dadka ku hubsanno kadibna wixii kale u qarsoon isagii rabbigii adilatu hadihi shuruud min kitaab illaahi wa min sunnati rasuuli illaahi daliilka shuruudan kitaabka iyo sunnada xaggooda kaga saabsan oo laga soo saari karo kan koowaad daliilulcilmi in cilmi laga rabo qofka inuu aqoon u leeyahay maxaa daliil u ah qaala allahu tacaala alla wuxuu yihi faclam aqoon u yeela nebi o baro annahu shaniga ku saabsan laa ilaaha ila allah wa qowluhu ilaah wuxuu kaloo yihi ilaa man shahida bilxaqi ilaa ninkii xaqa qira mooye wahum yaclamuuna iyagoo aqoon u leh wahum yaclamuuna waxaa lagu fasiray ey waxaa laga wadaa bilaa ilaaha ila allah ayay yaclamuuna garanayaan biquluubihim quluubtooda ay ka garanayaan maa nataquu waxay uga dhawaaqeen bihi bialsinatihim shayga ay carabkooda uga dhawaaqeen ayay qalbigooda ka garanayaan xaqa see lagu qiri karaa adoon garanaynba alla wuxuu shardi uga dhigay ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun ninkii xaqa qira isagoo garanaya kaasaa liibaanaya wa min asunati alxadiidu thaabit fi saxiix can cuhmaan xadiidkii cuhmaan ibni malik cuhmaan ibni cafaan radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yihi man maata ninkii dhintay wahuwa yaclam isagoo cilmi u leh annahu laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye dakhala aljannata jannadu galay isagoo cilmi u leh kuna camal falay iyona kaa hoos bixin laa qaar badan ba carabtu way garanayeen micnaheeda abulahab buu garanaya abu aalib buu garanaya abu jahl waa garanaya naar bayna aadeen asagoo garanaya kuna camal falo ilaahay keliya caabuday oo ateecay nabiga sala allahu calay wasalam ayaa jannada gelaya idan shardigeeda koowaad waa maxay in micnaheeda la garanayo laguna camal falo ilaahay cibaadada loo gaar yeelo wajazaakum allahu khayra wallahu subxaanahu wa tacaala aclam